cabashada badanna ma fiicna in adeero mayd baa ku yaalla anigu waa la socdaa qofka marka oo adeerkiisa ama qof dhiiggiisa maydkiisii ama dhiiggiisa ka hor muuqdo niyo hadda wax allaala wixii afkiisa soo qabtuu sheegaya oo wax uu ka xishoonaya ma laha xildhibaanadii iyo wasiiradii baa iscelin la oo ayagii oo raba inay shacabka galmudug dhan matelayaan oo raba inuu maaragtay shuruuc cusub soo saaro oo ka shaqeeyo horumarkii baa iscelin la oo wuxuu raba sheegaya asaga xataa loo qabamayo maxaa yeelay qofka marka maaragtay oo hadlayo dareenkiisa la fiiriyo wuxuu ku sugan yahay هذا وزير واحد حلوان واحد مو قوانين أنا وحر وصفر بس معك هنا يا مارت كيسي أما قف قالي كوا عمشنا نقبحي لبي توان والله كل ما تقول لا يرى أضيان أبدا ممكن هذا الدجان لو كشة كيس ورعايل كده وسلمان كده ورأنا صعد أو قال صوت أو مقالة ذي قال صور أو مرعورات أو سو مقالة ذي كاجي معين أو قريها يفلوي كاجي تبقيها كمان سنة عقل كاد وكجورتي ما أنت ما يشر السكوت در رجال كده عينه لما بقولوا كيلومتر بحدود إثيوبيا يعني كنسر وعدته وكنت كثير دقيقة كاجي لما بقولوا كيلومتر كذا وسيقله هو ربط أفكار بس السكوت در يصاحوا هذا تقاني marka aad aro deegaankiina ma kala taqaanid dadkiina ma kala taqaanid waxa uu meelaha marixan gada taamulana dadka ma wax kala taqaanid bacro marka hadlaysi waa ina maaragtay aad dadka maaragtay aad si gobonnimo ah wax hadashaa laakiin markuu qabanayo adigu nin dhalinyaro baa taayo wasiirkaaga iyo xildhibaankaaga baa sidaas maaragtay u cabanaya oo dadkii ka dhigay in ay soo weerareen ciidankii galmudug la tababarayay daraawiishta oo nooc walba leh bay soo weeraray xasuuqay shacabka xasuuq u leeyahay hadda sharana waa la ogaa wax weerarka soo qaaday oo baabuurta watay inay marixaan oo tashaday xataa oo maaragtay arrintan falanqeeyay ay ahaayeen isdheheen maadaama beeshii shacab ay ku mashquulsan tahay xoreynta deegaanadeeda ay shabaab la dirirayso ee hobyo iyo dhankaas jirto meeshu waa cid leh aan bal guryaheennii aan ku soo noqono iyo deegaankeenii aan weerar soo qaadno hadda aqoon baa ugu laabana meeshan islaamaha iyo xataa carruurtaa dirirtay bal iska daa ciidani oo wallahi waa ayagoo iska kaftamaya oo iska cayaaraya iska qoslaya dagaalka iska galaan ma talo iyo tusaale ma u baahna waa dad dhiigoodu iyo xabaddu dhagahooda si ugu yeeraysay kaftan iyo ciyaar u qaba oo iskaga baashaal waxaan waxba u arkin markii adeerow caban oo annaga maaragtay tacsiir guud anoo afka beesha saacad ku hadlayaa kule afka beesha saacad tacsiir guud baa ku leeyahay niyow inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun maaragtay qof walbana waa dhimanayaa in adeerow ka sabar waa la dhiman jiray si gobonnimo u samar oo iska samra deegaankaasna maaragtay degdega badanna waxaan iska daaya oo waa inaa maaragtay talo dheer iyo go'aan iyo qaadatin marka maaragtay meelo badan wax ku fiirisiin niyo kuna tashatin in maaragtay dad lidinka leenayo ama xasuuq ama wax dhimanayaane ha caban oo waxba maaragtay calooshaysa furin marka in adeerow afkana waa la xirtaa waxyaalaha qaar hadda fiiri caddeenay ku noqonayaan waxaa qabtid waa la qarsadaa wasiirkii baa cabaadaya guddoomiyihii dhabad baa cabaadaya xildhibaanadii baa meel wax kusoo qoraya dadkaad ceebtiinni iyo wixiinni baa maaragtay fashirinaysiin in labada orodna kala daaya oo maaragtay soo cararka iyo sii cararka taasna maaragtay idinka ceebay ku tahay in waan walaalkay baa tahay wallahi billahi waa ku tacsiinayna adeer tacsi guud baa beeshaas dhan siinaya dadka meeshaas ku dhintana allah u naxariisto allah وراد نيو horta waan salaamahay oo niyo horta waad maqlaysaan wiilkii yarka ahaa uu iska balway orniyo horta ninkii asagu tacsi waxa weeye ama dad wax gaarsiin kara ama asagu waxa weeye meedowsan u oolin baa horta cid u tacsiin kara adeer wadigii baa meed ku yaala kuwaagii baad soo qaadan lahaa war soo qaadaan kugu haya tari xalam meeqa qof baad u malaynaysaa oo ama sacada ama habar gidir in la waco leeyahay war meeshaan imaado kale meedkiina qaata waxaan in ballan qaadayna inaan layna dilayn qof dambe layn ka dilay waayo qofka hadii la dilo waxa weeye marka u dambaysa maatu noqdaa horta ma lay maqlayaa agahow aad iyo والله aad iyo والله لكن ما sawirka يقرأ ii saara balaag قوتات كجرتاني بل ما gudoomiyaha يقص xoreynta يا galmudug yaa waay marka sida waa lagu Dhegeysta. malaawaysa markay sidaas tahay oo ay sidaas tahay niyo horta wiilkan yarka waad maqlaysaan wuu iska balweeyaa haddana waxa weeye taari xala iyo ilaa hadda waxa lagu hayaa niman waa inay ballan qaadayna inaan laynin qofka nool maanta nool ee shala aan waxba gaarin intii shala dhacday baaba noogu filan annaga waxa weeye hadii dad la dilahayo iyo hadii dad la garaacayo iyo xasuuq intaas noogu filan oo waxa weeye dadkaas way jabeen iyo waxban ka dili meeyna waxa la timaadaan kaliya inta timaadaan xaniye iska daydaan waa laynin ballan qaadaya waxaad keentaan niman yahow xitaa dadka waxa weeye dadka qaraabada la ah soo dirsada hadii sidina kala u baqaysaan meeshan waa faraha loogu gudbay baqdin baa ka dhacday waxaan caadi ahayn baa ka dhacay darbaaxooyinkii baa la xasuustay hore la isku geysan jiray aad baa loo kufsado dadkan marka xitaa waxa la isku aday ilaayahay